السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجيسيجي أنقبن إيش يسلي بقسن قيس عبد الله كاري أحمر لباح عاوي يعني سكين عمان وحن ربع وحيرنا وحكا إراهدو أنت هرت ما أنت شهر قريسي هذا الكيجي هذا أمهات سنتين أو كحرن بيش كان مرقاتي قنول لايف كيجي انت شير قريسي aad baad u mahadsantiin waa idin mahad celinaya intaas kadib haddana inaa sheer garaysiin aan jeclahay waxaan rabaa weli waa qabyaalad hadlayaa qofkii iga caroon lahaa iyo qofkii joogi lahaa anuu waxba la gaban maayo caaw inaan runta sheegaan rabaa waxaan dhageystay maanta hadallo shirki hawiye rag lagu martiqaaday oo hadlay oo siyaasiyiina ayaan dhageystay hadalladooda oo dhahaya xamarna lagama xigo oo naga wada dhaxeeya xamarna lagama xigo oo naga wada dhaxeeya hadalladaas rag waaweyn oo siyaasiyiin ka soo yeeran hadda inaan magac dhabo ma rabo magacoodan inaan sheego ma rabo xamar waa la kala xigaa haddaan caawo sheegayaa dad gooniya iskale dad buu degaankiisa yahay ilaahay awoodiis ayuu ku noqday madaxtooyada Soomaaliya ilaahay awoodiisu ku noqday laakiin deegaan ahaan iyo dhul ahaan rag baa iskale waliba magaca iskale hawiye la yiraahdo oo u dhashay oo iskale haddii aad rabto xamarna wax ka yeelato marka waa ka qancinaya haddii aad rabto xamarna wax ka yeelato oo xamar aad xiisa u qabto oo aad rabtid xamar inuu deegaan ku noqdo oo aad rabto guryahaaga inuu xamar aad ka dhisatid oo nabad aad ku deganaatid oo aan wax lagu dhibin waxaad wax iga siinaysaa garaawe waxaad wax iga siinaysaa boosaaso waxaad wax iga siinaysaa kismaayo waa kula deganaa weliba caanaha ragga keena oo meesha magaalada caanaha keena waa hawiye waa niman maaragtay shiiqaala waa niman maaragtay gaaljecela degaanka rag badanaa degan oo hawiyaha oo tirsi badan leh waa la wada leeyahay taas laakiin waa awooda la isugu sheegtaa sidaan ogahay waa lagu kala awood badan yahay dabcan xamar ilaa shabeellada hoose kismaayo qarkeeda ka soo rog dad rabtid inaad guri ku yeelatid leegama xigo afka waa dhihi karaa garaawo leegama xiga aniga laakiin waxba macna ma ii samaynayso xaqiiq markaan kaala hadlo garaawo aniga maanta guri kama dhisan karo waxaan dhageystay wiil shalay aan hadalka waa kusoo noqonayaa wiil waxaan dhageystay jireera oo jireer weyn sheeganaya wariye shaashaa waxaan ka raadsu yiri inaan wariye noqdo ayaan damcuu yiri anoo wariyaasha iskuul ii furan yahay wariyaasha Puntland soo saara macallin wariyaasha soo saara ah aan iskuul tagu yiri ani wiil hadda caanaho magaciisa ma rabo inaan soo qaato oo wariye ah oo Puntland ugu caansan iyo aniga raadiyo wada tagno yiri wiilkii waxa la yiri soo gudbay anigana inta la fiirshaa waxa la yiri walaalle jireer baa tahay adiga yaa raadiyo ku geysanaya walaalle iska bax walaalle alla igu yiri sheer gareeya aniga isoo fiirnina caaw warana idin hay waa buuxa caaw dhan saan wax u soo dhageysanay marna waa qosle marna waa yaab nin weyn oo siyaasi waay xamar leegama xigo wallahi inaan been ku sheegin wallahi xamar waa la kala xigaa ragaan iskale ragaan u dhintay markii cadawga ugu darnaa laga saarayay oo cadawga lala dagaalayay barkinta ku dheereysnid hawiya la laaynayaa hawiya ku baaba'ay xamar leh dhaq maanta suudinta u soo xirato taay u soo xiratid oo aad soo xaragootid baraafuunka ugu qaalisan aad isku dheejisid inaad tiraahdo waliba dawladnimadaas annagu aan keenay oo aan soo dejinay oo aan u dhibtoonnay oo dagaal u galno annagu isugu leeyna hawiye ahaan inaa maanta inta ku xaragootid oo aan xaraga aad la dhacday aad tiraahdo xamar ligama xigo nama qabato annakaan is yeelnay سمعنا أن يلينا أنكو عدالة نقانه واحد أنا وح أمسنا هو يدك عدالة بدن نيهين صومالية وعدالة
gaarsiiyey ummadoo dhan ii gaarsiiyey dadka ugu cadaalada badan hawiye inay yihiin laakiin waxaana laga badan yahay dacaayadda maxaana looga badan yahay waa dacaayadda waana looga badan yahay anaku hadalka ma naqaan inaan sii wadno bartaasaan uga harnaa ayaku waa wadaayaan ilaa ay dhammaaday wadaayaan abudaaroodiye wayna leeyihiin rag dacaayadda u sameeyay leeyihiin xamar rag gooniha iskale u dhashay deegaankiisana iskale haddaad dhulka kaaga yaalla waa ka dhisan kartaa dhul boosna waad ka gadan kartaa laakiin taayiro aad ku jiidato 2 taayir oo ku jiidato gurigaas waa inuu yeeshaa wallaahi haddaad taayiro u yeelan anaa iskale haddaan kuu sheegaa dowlad kasta ha timaado sheer gareeye haddaada taayiro u yeelan anigaa iskale haddaada jiidan karin guriga ka dhisan haddaan kuu sheegaa xamar haddii aan lagaa xigay haddii kale waan kuu sheegayaa xamar waa la kala xigaa ragooniyaa iskale waa loo dhashay markaad iga siisid wax meesha aad degan tahay iyo meesha aad ku nooshahay oo adiga dadkaaga dadaan ahayn lagu arko ayaa ila yeelanaysaa xamar ana ogolaha markaas inta ka horeysa ilama lihid xamar ilama lihid adaa cunsurnimada i baray adaa waxaa i baray nacaybka adaa i baray wuxuu dhan adaa i baray adaan kaa barta waxaasoo dhan nacaybka adaa i baray maaragtay Facebook in laga soo hadlo oo aan maaragtay dadka xanaaq iyo xanaaq aan naga keenteen aan la baraysaan live-ka aan u soo galayno waa naga taacad waa adkaysan weyna hadalladiina idin adkaysan weyna wallahi inaana jeclayn oo billahi wajigay inaan soo dhigo live wallahi ma jecli laakiin markaa xanaaqdo oo dhiigu ku kaco oo aragti nin facaaya ninaan kaa caqli badnayn nin ama kugudaa ama kaa weyn oo dhahaya hadal adigu aa ka xishoonaysa ka qanjilaysa ku hadlaya see waa la isqaawinaa annaguna waa isqaawinaynaa weligeedba wejigeedaa tiriya madaxaan soo dhiganaynaa keliya markay futada soo dhigaan oo qaawanaana soo dhigan karin annagu wejiga keliyaan soo dhigayna alaa kulli xaal waxaa weeye min walba bartuu u dhashuu leeyahay bartuu ku dhasho xuduntiisa ku diganta ilaad ilma adeero ii sheer gareeye haddaa u badan tihiin qoladan haysto waxba ha sheer garanayaan dislike saara anigu ma kala jeclo waxaas waxaa weeye anigu runtaan sheegayaa caawo dadka qof walbaba meeshuu degaya sambalolsha hadda dadku waxay dhahaan waa qabyaaladaysti waa nin xun waa nin ka hadla ii sheeg ka hadla qabyaalad sax ka hadlo hawiyo kaliya ka hadla wallahi sambalolsha waa caaqil oo bilaahi oo tallaahi anu sambalolsha hadalkiisa waa taageeraa waa ninka hawiyaha oo runtaa ka hadli kara xaqiiqda oo dhabta taaban kara oo sida nimankan ay u hadlaan oo kale u hadli kara asaan ka hayaa wax hawiyaha kale kuwa kale siyaasadaysanoo waxay u hadlaan oo wadanka in la wada leeyahay dadka susaano oo macnaha markay hadlayaan siyaasiyiinta hawiyoo dhan wadanka in la leeyahay wejigay ka wada rabaan meel kasta war weji nimankii ayakii siyaasiyiinta in la ahaa ku fac ahaan weji rabine si wejigaa rabteen idinku muxuu yihi nin walba runta la isku sheego waayo niyo annaka ilma naga baabi'i maayaan xarunna naga baabi'i mayso qof walba Soomaaliya waxaan wax ka dhimin annaka naga dhimi mayso qof walba wax ka halaabayaan qof walba wax maaragtay wax u dhibaysaa laakiin haddii siyaasadda lagu kala xishoodo qof walba qofka kala qadariyo deegaan walba la isku ogolaado aniga garaaw la ogolaado adiguna xamar lagu ogolaado Kismaayo mid kale loo ogolaado baydhabo loo ogolaado oo dadku ay integration noqdaan isdhexgalaan integration waxa la yiraahdaa isdhexgalka bulshada markay dhacdo oo integration la sameeyo aniguna ogolaa wax walba tixgelin hadalkayga xataa waa ka fiirsanaya qofna wax u dhimi maayo qofna aflagaadeyn maayo qof hadal iga gaari maayo wanaaga ku hadashiina ku hadlaya laakiin inta wax meeshaadina soo oodatay hadal kalena uu ka fakanayo dadka alla hadlayso xolamaan xawayaanana maan aqli aan leena waana fikirnaa 24 saac hadal kastana waa fasirnaa nuuc yaha naqana luqad aragti ku hadal waa barana xataa waxa weey marka runta isku sheegaynaa waxa weey markii aniga waxay ogolaataan wax uu ogolaanayaa waxa weey qof walbana qofka kale markuu wax ogolaado ayay Soomaali sinaan doontaa aniga garaaw marka wax igu ogolaatid ayaan xamarna wax kaaga ogolaan doonaa waan ogsoonahay Soomaaliya Muqdisho inay tahay xamar magaalo madaxdii Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay ka dhaxayso xildhibaanka ka yimaada garaaw iyo xildhibaanka ka yimaada Kismaayo way ku nool yihiin hoteeladina degan waan ogsoonahay lagumana diidan waa ku noolaan kartaa
وانا ماركتي ودنكي مقالة مدحتي دلت سرا لو جوجا لكن قوف كاسان wax kula hadaa tiraad anigu waa xanaaqa qofkaas aniga kaliya iskale qofka hadaa ila soo gashid lama liid ma yeelay waxa soo haray dawladda farmaajo oo hadda xasan sheekh amaan dhood hadla xasan sheekh markuu cabaar hadlo xoogaa markuu hadlo horta waa aftahan laakiin markuu cabaar hadlo xigmad badan uu helaa wuxuu yiri xasan sheekh dawladda farmaajo waxay la mid tahay gabar inta la furay ninkii furay oo ilmo ka sii dhalay micnaheedu maxay tahay gabar inta la furay ninkii furay oo ilmo ka sii dhalay micnaheedu ma qabada gabadhaas dawladda farmaajo la mid uu yiri cabdiqaadir cusublana wuxuu yiri haddaad farmaajo aad warcad ka soo saaran shirka aad ku jirtid iyo madaxda aad la shiraysid iyo waxyaalaha aad sameynaysaa iska deen weydid dawlad ka garab shaqaysan ka soo garab dhisayna على كل حال cabdullaahi farmaajo no way ka fashilantay waxay uga fashilantay ninkii fahzaad siinaha way isqaniineen qadar wuu ka guuray imaaraadka carabtu baryotomay oo saa ogeed iyo dhibaatada ogeed dhaxmartay lacag uu weydiisanaya aan ku soo laabto imaaraadka carabtu wuxuu leeyahay soo celiya markaan dambe in la shaqeynaya imaaraadkiina maaragtay hadda waa kuwa hoos isaga jira waxyaalo badan afakaday farmaajana inuu soo laabto rabaa mar labaad oo lacagta imaaraadka uu soo qaato imaaraadkuna kulli ma aaminsan farmaajo inay keenayaan laakiin si ay Soomaaliya siyaasadeeda ugu soo laabtaan iyo dhibaatada ay Soomaaliya ku hayeen si ugu soo laabtaan qoladii rabaan kullu gooyeen farmaajo uu iska jeedinaa haday rabaan imaaraadku because lacagtu ma dhibto waxa adeegsada imaaraadka reer galbeedka dhan adeegsada qolo walba oo adeegta carabta waxa dumiyay oo ugu badan oo aragto wadamada islaamka sa aragto ugu ciyaara waxa kamid ah imaaraadka sacuudi arabiya iyo kuwait saddexaas wadan iyo qatar afartaas wadan loo adeegsadaa carabta aragteen oo baaba'san oo sa aragtay gaalada u galayso saddexaas wadan loo adeegsadaa reer galbeedna u soo dhaxmara reer galbeedna xataa wuxuu u soo dhaxmara afrika u soo dhaxmara intaas oo wadan annaka wana loo soo dhaxmari jiray toban shaati oo la soo gashaday shaatiga u dambeeyay ku imaanay mana fahmi kartid hal nin markaa ogaatid meeshu ka soo galay ninka labaad iyo ninka saddexaad iyo ninka afraad saa ku helad waa dhib badan taas siyaasadu way fagaanaysaa imaaraadka marka adeegii ay awal ka dhex adeegan jireen Soomaaliya ayaan dhowdu waa tii laga laalaabay oo ay laalaabteen waxoodii kadda way soo laabanayaan waxay uun la joogeen qaraxaasna waxay ku soo galin jireen qaab kale oo dadbanay ku soo galin jireen oo siyaasadaysan ay qaraxas ku soo galin jireen oo Soomaaliya way qarxin jireen oo ma aaminsanin nimankan magaca Arsenal aan ugu yeeraa anoo magacooda waan nacbaa inaan sheego nimankan Arsenal qaraxyada aragtay ay sameynayaan ayaka sameeyay anigu way sameyn karaan laakiin hantidaas iyo maalkaas waxa ay ka dhalinayaan oo ka curinayaan waxa sa aragto u qarxay ay keeni karaan aniga ma aaminsanin waa lacag imaaraad iyo meelaha soo maray waa lacag carabta soo dhaxmaray oo Soomaaliya loo soo dhaxmarsiinay nimankaasna dhowr waxyaalood Soomaaliya kula dagaalaan koow bundada koobaad ee kula dagaalaan waxa kamid ah baddaas maranka weyn oo haysano oo markabka Yurub ka soo dhaqaaqo oo soo istaagay markabka America yimaado Australia ka soo istaagay koow waana lagu dagaalay istiraatiijiyad waxaan haysanaa international oo bad ah oo baddaas inay furanto oo Soomaaliya ganacsigu u soo wareego oo istiraatiiji caalami ay ka dhigtaan wadamada caalamka ganacsado reer Yurub iyo America iyo Shiinayska iyo meelahaas maraakiibta ay wax ku kala wareegsadaan oo international laga dhigo oo macnaha dekada ay diidan yihiin secondly waxay diidaan oo kale nimanka waxay diidaan oo kale shidaala ku jira liya Soomaaliya xoogana way ka foorartaa carabta waxay aaminsan yihiin shidaalkiina halkaas u aadaya hadii Soomaaliya shidaalkeeda la sameeyo ay aaminsan yihiin laakiin irsaaqada Ilaaha qoray subxaanahu wa ta'aala reer galbeedkuna waxay nugula dagaalsan yihiin oo ay carabta noo adeegsadaan sheeko uu ka tagay Maxamed Siyaad Barro ahayd aan wada bahashan dahabka iyo goldiga iyo ku jira platinumka wadankeena ku jira anigu aan qaata shaqaalaha boqolkiiba konton iyo shaqaalaha aan qaatay iyo qaadan maysiin dhibaatadii wali taagan calaa kulli xaal warkii soo duuban waa idin soo duubaya farmaajo inuu ku soo laabto rabaa hawiyo mar labaad inuu idin yimaado oo soo noqdo rabaa
imaaraadu abaabulayaa ninkaas aa aragteen oo sheeko kalena waa si idin hayaa caawa oon kaloo maqlay sheekada kaloo idin hayaa waxay tahay sheekada kaloo idin hayaa waxay tahay maantay golihii hawiye oo kulmay oo maanta la kulmayay nimankii ayaka ahayo casuumaadda loo sameeyo oo dowlad goboleedyadii ayaka hadda soo galiyay oo xoogaa iga xanaajiyay dowlad goboleedyadii soo galay meesha casuumaadda loo sameeyey kabacdi hawiye waa isku dhex laabtay qolaaba waxaa la barayaaba inay leedahay ra'iisul wasaaraha hal sano oo dheeriya hala siiyo laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah ra'iisul wasaaraha halkaas ma farmaajo waa u raadinaysaa ii sheeg hal sano dheeriya oo kabacdi hadda nala sii joogo ra'iisul wasaarahan muxuu yahay waa ninkiisa 3 bilood qaatee wariyaa allihiina lamaya hawiyo arrinkaas haddii habar gidir wadana ha joojiso hal sano dheeriya ma rabno waxba ku fali mayno nooma cuntanto 3 bilood oo bakshiish ka ah xataa qaadanay ninkan aqoon-yahan ka ah oo lagu qaadan ku qaadanay waxba farmaajaha noogu dheeraynina habar gidiray haddaad inku damacsan tihiin ha weydiisanina qolo ilaahay ku dhaariyay ha weydiisanina farmaajaha loo dheereeyo hal sana lagu daro ra'iisul wasaaraha walaa sheer dhaha waraa waxaan aqsanaa caawa ha lagu daro farmaajo waxba ha weydiisanina waa gunnimo farmaajo hal sano kala sii fadhiya xamar waa gunnimo xaniyihiisa iyo raganimadiisa intuu ku yimaado madaxweyne labaad uu ku yimaado waa u dulqaadanayaa wuxuu rabaa ku sii tunto xaniyihiisa iyo raganimadiisa hadduu ku yimaado wey laakiin wallaahi billaahi tallaahi dheeri iyo ha lagu daro haddaad hawiyow qaadatiin hal laydin gumaysto gumaysiga waa taqaanin sida laydin gumaysto waa taqaanin hal si fiican laydin gumaysto haddii habar gidiri aad damacsantihiin saas oo aad ula tegi doontiin beelaha in la dhasho walaalihiin oo hawiye oo aad dhihi doontiin ana lagu daro hal sano oo dheeriya haddii odayaashiin aqoon-yahankiina hadduu damacsan yahay haddaa adinku damacsantihiin ka jooga arrinkaas bakshiishka habartaas way dhimatay 3 bilood aan ku qaadana rooble asagana wuu yeela taytalkaasuu ka rabaan dabcan u malaynaya annaka ciddaan habar gidire waxaa u madax jecel nimankan sacadka ra'iisul wasaarihii hore cabdullaahi ciisana annakaa lahayn kan annakaa lahayn waa yeelnay qaata iska haysta laakiin 3-4 bilood iyo iska dhamayso taytalkaas uu ku raaca ra'iisul wasaaraha mar noqota hadda ka horaan soo noqda kafeega ku cab inaad yar macaan kugu filan tahay baararka markaa fariisatid kafeega ku cab meelahaas ra'iisul wasaaraha hadda ka soo noqda laakiin waa la dheereynayaa ka yiri maayo bataatanba waxaana kaaga yeelin adiga waa kuwa ogola laakiin ninka kula joogaan waa ogolayn inuu sii joogo meesha tartan inuu ku yimaado iyo xaniyihiisa maahan uma ogolin meeshaan hawiye waa cadaaladdu hawiyaha waxay tahay waa ogolnaha ninkaan inuu mar labaad soo laabto hadduu xaniyihiisa ku yimaado awalba xaniyihiisu shalay uu ku yimid waa ogolna ha joogo meeqaamka ummadda soomaaliyeed aan ilaalinaynaa annakana waardiye ka una dhimana waa ogolna ha joogo mar labaad laakiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi maalin iyo inta xildhibaanada Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya la soo dhisaayo iyo inta odayaasha la xulaayo aad dhibaato nagu ah kulle May iyo June waa u dhacaysaa intaas kaliya sii jooga 6 bilood waa ku filanta hal sano iyo waxa si miiray aniga no man ka yiray aniga suurtagal ma farmaajo ma ka yiray diyaarad dambe oo raacdo oo meel kasta aad ka deg weydo Itoobiya kaliya u raacdo waxaan u maleynayaa inay ka soo gabagaboobi rabto hadda inta yartaa bilaha ku dhuman iska raac diyaaradaha awalba adoo dan soo qabana Itoobiya ku aadayso Abiy Ahmed ku soo salaamaysa kaliya iyo afwarka ninkan la yiraahdo kii oo isha waxa soo salaamaysa Eritrea aad soo salaamaysa hal wax oo Soomaaliya u qabatay oo maanta aan dhihi karo waa u qabatay ilaahay markaan ka cabsado ko ama anigu ragga kama been kama sheego qeyrana badanaa qabtay oo wax qabanay hawada Soomaaliya oo meel fiican mariso xasan sheekh soo gaarsiiyay sheekh shariif soo gaarsiiyay oo adigan soo qabatay waa ku tirinaya farmaajo wiilal yar yar oo xirxirnaayo meelaha ku xirxirnaayo inta aaladaha internetka aaladaha social media aan ka cabaadnay dawladda soo deysa soo deedeyseen waa labo ilaahay hadduu kuu sama ogol yahay ii sheegeen
maxay kala ahayd garoonka aadan cadda oo hameenkii leyrarka ay kusoo degaan diyaarada ah ku xirteen 3 ahlu sunna oo aad ka kiciseen dhuusa mareebo qorqor aad u adeegsateen iyo cali jeeb ku jira 4 ciidamo Soomaaliya oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan iyo waxay xoreynayaan aan aqoon maalin kasta aan dhisaysiin oo meel ay wax qabteen ilaa hadda aan arag 4 laakiin jid maada dhisin waxba maada dhisin nin aad rido iyo qole aad dad aad shacabka ku layso meel baydhabo iyo Axmed Madoob oo la dagaasho dani oo inta ogeed iska laalaadeen qol walba saas iska daba maranayseen ninkii ogeedo shacbiyada ogeed laheedo oo dayib mu aha gobolka Banaadir ninkii xukumi jiray dayib ninka ogeedo oo qarxii sooba markuu dhacay shacabka ogeed lahaayo dadku saa ogeed u jeclaayeen ninkii ridaa ahayd fiiriya ridaa ahayd uu ka tagay kumxaayin kumusacadaawin waa nin siyaasi waa nin shacab laha halkaas uu ka tagay uu ka fariistay bal orag cadaaladda way arag ma nin daarada hal rida marka gurigiisa hal lagu rido garaaw hal lagu rido oo meeshu degan yahay lagu rido ilaahan ku dhaartay inuu naawiya joogeen inuu gubeed asagoo lahaay la ceyrsanay la keen laha ama meydkiisa loo keeni laha ama asagoo cararayo meel ka soo gali laha meeshu meelaha degan ka soo gali laha cadaaladda barfiirinadeeru macaano waxa u dhacday madaxdanadii oo anna kula tartamay kursiga kula tartamay ina Cabdishakuur kursiga kula tartamay aad u dhacday hameen madow dalq saasoo dhaawacday xabad waxba kumaana dhihin madaxtooyada wali fadhida Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo maqaam madaxweyne soo noqday oo wadanka meesha ay soo gaarsiiyay 2 saac diyaarad kula dal wareegaysa beledweyne qarrab ay la dhici rabtay waxba kumaana dhihin fiiri inaad waxaan kugu tulqaadan arag farmaajo in la yaal adoo ahoo seedigeenaho aan ku ognaho gabadha ay ku haysaa ninkii seedigaayana 7 daqiiqo ku rid in la yaal hadaad aqoon waa ninka seedigaayo oo gabadha la degan oo cidiisa la deganeen hawiyo la degan farmaajade gabadha la degan gabadha gabar hawiya oo qabo in la yaal baad ahayd markaas seedigaa waxa ku ritay 7 daqiiqo seedigaa kamaad xishoonbe ninkii waxa ogeed ku sameyn jiray ninkii meelaha ogeed ku gali jiray ninkii dawladda saa ogeed uga dhigay babanka oo dhaay xiradaha ilka aakhirka xishood maxaa tahay koofiyaan gashana koofidaas aan gashaday nabadoonan ku ah waxaas waa la soo ogaaday bidaartii aad laheedna timaad soo beeratay timahaagina waa kuwa halkaas maraya bal anigu bidaartii hadda waa taas muuqatee koofi markaan gashado halkaas tima laga arko maxaa la iimalayna soo tima ma soo tabcan xoolihii Soomaaliya kuma soo tabcan hadaa xil qabto koofina waa gashana nabadoon noqdaan lee koofida markaan gashado nabadoon maahin koofidaada timaad beerata farmaajo diyaaradaaduna way badatay saaxiib kuma qabsadeen maanta waxaan ku haystaa xilkii Soomaaliya oo maalintii lagu dooranayay aan Xasan Sheekh Axmed markaa maqlo aan xanaaqay Maxamed Cabdullaahi farmaajo markaa maqlana aan farxay adaa iga hunqaaci sababta iga hunqaaci muxuu sheegaa wallahi billahi ta'ala Xasan Sheekh xigo in adeerkayaan taagay aan diidana sababtan ku diidana Xasan Sheekh waxay NGO ahaa Xasan Sheekh qabiil ma lahayn wuxuu watay niman NGO dama jidid la yiraahdo nin walba 12 dabo anu wadankan warqabin laakiin nin walba 12 dabo ku dhistaa la ilaha dhulkii oo dhan ay qaateen ay waa wareey waxba kama reebinay dadkii shacabka ka kicina la laha saasa Xasan Sheekh layga horkeena laakiin xaqiiqo ma heenan runta markaan ka hadlo ka wax qabad fiicnaa laakiin adiga waxaan maarad kugu taageeray 6 bilood oo mushaarka ciidankiisa uu ku dhiibay Sheekh Shariif oo ciidamada inta ra'iisul wasaaraha aad siisay ana loo ka buunbuuniyay inaad macaano markaasna daarad kuma wadin hawiya ku waday markaas wax dhan farmaajo wax ka fiican ma hawiyo dhan aad la siisay mushaari inta siisay 6 bilood saan waxaan isniri ki adduunka ugu fiicnaa soo socda saasan ku taageeray shib waa hadli weyn runtaan ku sheega farmaajo waan is ogtahay beenna ka sheegay ma codkar maahid markaa hadlaysid dad hadal ma deeqsin karto codkar maahid anigaas hadda ka hadlaaya meeshaas marqaatiga nool oo hadda shakhsiga ah oo aan siyaasad waliba xataa ku jirin aka codkarsan markaan ka hadlayo meeshaan sida aniga hadalka isugu aadina xataa isuma aadin karto xaqiiq markaan kala hadlo runta adoo madaxweynaha oo dadkii dhamaa aqoon-yahanada ku hor fadhidaan a tiraahdaa
waa shegshegtaa weliba aad baan ugu xuma annagaa kugu dooranay oo xaniyaaga aad ku timid waa kugu qatalman soomaalida hadda ka hor waxaa la nin baa wuxuu usoo baxay kaadida markuu usoo baxana wuxuu arkay gurigiisa hortiisa wax ka madow markuu arkayna wuxuu isiri waa wax ku cuni doona ama bahal ama wax adiga ku gaadaay waayo wuu noqday sariirtiisuu tagay isku kaadiyaale subaxdii soo baxaale wuxuu arkaa le geed inay ahaayeen ama wax madow meeshii ka muuqday geed ay ahaayeen wuxuu geedii ma waxaan ku mooday waxaan loo noqon doonin waxaan ku mooduu yiri markaan kaadida u fariisto bahal ay cuni doona waxaan loo noqon doonin uu yiri siyaadaba saa meesha aad uga madoobaan salkaan kaa goyn doonaa haween hamin dambaba sada horteed uga madoobaan horta farmaajo salkaan kaa goyn doonaa oo kuuna qatalmanay kow bartaas jiriidkaan kaa goynaynaa lagamana yaabo lacag kastoo kaa baxda inaad soo noqotid meesha u guurayno iyo meeshaan ka guuraynana hadda waa fahanay oo markii hore ismaan haysan meesha qaabkaa ku timidna waxay ahayd qaab qalad ka dhexdhacay dadka xamar degan ay ahaayeen laakiin haddeertaan way is haystaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan kuu sheegayaa ninka habar gidir oo hadda aad keentay oo dabada aad kasoo riixaysid oo leedahay soo weydiiya hawiyihii kale in hal sana la iigu daro oo hal sana aan sii joogo oo aad soo riixaysid oo odayaashii waxgaradkii maaragtay hawiye oo kale inta lacagta lagu xaara la leeyahay hawiyaha kale aan sii weydiinaa raggii mucaaradka ahaa shameful xamara hadda kor waxaa laga dhihi jiray filinkaaga eeyaa cunay filinkaaga dhihi jiray eeyaa cunay saan isku lahaynaa ey runa inta yimid dadkii cuna kulley waa la ogaayay ayaantii waagii hogaamiye kooxeedyada ahayd filinkaaga eeyaa cunay sanad aad ku dirsatid iska daa kan haddeertaan meeqaamka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waxay dhigataan dhowraynaa maahane waa awoodnaa inaan idhaahno duurkaan galaynaa ciidamada farmaajo la joogo soo baxa waa dagaalamaynaa daqiiqad waynu yaqaanaan dadkan haweysii loo jamhadeeyay daqiiqaday duurka kusoo galaan ciidanka adiga ku wardeynaa kaasoo dhaqaaqaya waa la yaqaanaa laakiin ma rabno dadka ummadda soomaaliyeed waxay meesha isugu keensadeen aan ilaalinaynaa sababtoo ah dadka keliya oo waxaan nahay dimuquraadiyadda soomaaliya ilaaliya dimuquraadiyadda aan tegi karin garaawe oo aan inta daaroo dega aan tegi karin oo xamar keliya joogta annaka keliya ku hayna hadday run tahay warkayga siduu been yahay ha la geeyo garaawe cadaalad ha la geeyo nin hawiyaa garaawe wax ka noqdo hal xil xataa looga dhiibo nin hawiyaa kismaayo ha looga dhiibo haye been maan sheegaa ummadda halkan ku jirtoo dhan caawa oo wada dhegaysanaysa daarood iyo hawiye inta way isugu jiraan midka qabyaalad wada maahana inta kale xaqiiqda way ogyihiin been ma sheegaayo runtaan sheegaa wax aqoonsaday soomaaliya inay ku fadhiyaan kursiga ay ku fadhiyaan inuu yahay kursi qabiil laba ninaan ka arka aniga labadaas nin waa dan iyo axmed madoobe labadaas nin waxay aqoonsadeen kursiga ay ku fadhiyaan kursi qabiil inuu yahay oo qabyaalad ay ugu fadhiyaan sababtoo soomaaliya waa qabiil iyo qabyaalad markii xaqiiqda laga hadlo waxayna ku tahan kuwa caddaynaya soomaaliya waxaa lagu soo dhisay federaalna micnihiisu wuxuu weeye nin walba gobolkiisuu leeyahay gobolkiisana soomaaliyana waxay u kala degdegtaa qabiilay u kala degdegtaa okay markuu axmed madoobe gobolkiisii yeesho dani gobolkiisii yeeshay oo qorqor gobolkiisii yeeshay oo ninkaan waara gobolkiisii yeesho lafta garan gobolkiisii yeeshay kuwaan saddexdaa hadday garan waayeen labadaas kala garteen way ka caqli badan yihin wayna ka qabyaalo fiican yihiin ilaahay subxaanahu watacaalahana leh way ka fiican yihiin wayna ka caqli badan yihiin waxay uga caqli badan yihiin sheergareeya intiina waxay uga caqli badan yihiin kuu sheegaa waxay uga caqli badan yihiin way garteen dhuusamareeb saddex intay diideen ay xamar xooggooda ku yimaadeen say waxay isugu yeereen saddexdii farmaajo jeebka ugu jirtay ay dheen xamar imaada wallaahi dhuusamareeb shirka lagu soo gabagabaynay mudnaanta ee dhuusamareeb laheed ay xamar u wareejiyeen waxay ka dhimanayeen meel oo halkaasoo galmudug oo shalmaan daraad curatay shir 1 2 3 lagu qabta aa lagu soo gabagabeeyey heshiiska soomaaliya oo dhan taariikhdaas dhuusamareeb qaadanaysay diidaayeen say xamar geeyeen ilka abees hoosay ka xariiraan xataa waxaan aaminsanaa aniga oo aan iska dhaadhiciyo anigu kaligaa isku sheega oo aaminsanaa farmaajo xataa inuu la ogaa banoonigaas oo banooni caalami uu ahaa saddexdooda waa dagaalsanna laakiin
dhuusamareeb saddex shirka saddexaad waxaan ku dhammaynaynaa muqdisho banooni caalami inuu ahaa anigu iska dhaadhicin laakiin aana ku dambaabin aana kana hordhici maayo soomaalidu wax u qarsoon ma leh wixii kastana way soo ifbaxayaan markii la isqaninayna wax walba soo baxaan ama markii siyaasadda laga digay wax walba iska soo ifbaxaan kasoo gudub ninkan la yiraahdo farmaajo waan kuugu celinayaa mar dambe odayaasha waxgaradka hawiye intaad lacag u soo dhiibto ha dhihin aniir ra'iisul wasaaraha hal sana hana lagu daro bal mucaaradkiina hala soo weydiiyey xasan sheekh cabdiqaadir cusable shariif cabdiraxmaan cabdishakuur saddexdii naas ragga waaweyn oo muuqdo oo tartamayaa tihiin oo xisbiyada ah ilma adeerayaalow saddex mucaaradaa tihiin afar mucaaradaa tihiin afartii naasba warkaas hadduu idin hor yimaado ha yeelinina anigu waa rabaa ninkan habargidir inuu hal sana iyo 2 sano ka badan uu helo sababtoo ah dekada Soomaaliya rajo ka qabaa in la dhiso laakiin farmaajo ma sii sugi karto inaad irmacaan ma sii sugi karo dhikar aan qabin ugu riday macaanay inaan ka sii qaadnaa xataa diidaya waa ka xanaaqab farmaajo ilma adeer ma sii sugi karo farmaajo hanaga tago de farmaajo wallahi hanaga tago ma sugi karo waxa weeye ragga odayaasha hawiye oo waxgaradka imaamka ragga nabadoonnada ragga codkarka kulli waa dhamaadeen oo nabadoonnada ahaa haddii la yimaado sheekaasoo lacag walba qaadatiin lacag waa qaadasho cali jeelaa yiri codkana waa anigu yiri lacag waa qaadasho laakiin waxba ha yeelinina ilma adeerayaal ceebay nagu tahay farmaajo meesha sii fadhiya hadduu meeqaam doorasho labaad oo dadban oo kale ku yimaado waxa hadda Soomaaliya ka dhacay waa doorasho dadban oo mar labaad la doorto bartaas uu joogo noo joogaya wuxuu rabana ha haleeyo hadeer 4 sano wax leenaya waa sugayna waanu adkeysanayna waa iska adkeysana dhagaxyada sii badiyo dadku ha shaqeysan waayeen waxay rabaan ilaa mar labaad yimid moogta xaasinimo iyo waxay ka tahay asagay u taala iyo fulinimo waxay ka tahay iyo dhagaxdaas inuu iskaga difaacayo isheeg حتى وحنا سكنا دعيا إسري أمي صومي أنتوا سكوا أمين واي هوية كسوة ترى هذا دقة سكنا دقي والله وبالله وطلع هذا إن أنا كريم إلى علينا إن أنك إلى علينا إن ومدى الصومالية وح وذي يلا إلى علينا إن ما تابنا إنه كم رمنا هذا قادت يهدي كلام أقولنا بلايدان يقرحان يوحان إن نبض سجود الصومالي يفهد ياسين iyo nimankan Arsenal yiraahdo inay ka wada shaqeeyaan in dadka shacabka lagu cabsi gelinayo in dadka shacabka wali lagu sii gumeynayo in maskaxda looga dilaayo waxa dhanan ogna ismaleey qarax ciidanka halkaas afgooyo tu xamar meel kasta yaal intaas baabuur qaraxa aragto wada la soo dhaxmarsiin karaa ama baabuur qaraxa aragto wada laga dhax sameyn karaa xamar dhaxaysa kaba soo qaad geerish lagu habeyn karaa ama guri lagu habeyn karaa اسملي أنا وقول أنت كصباح هوتيل هو صهر دقو قرحنا اسملي أنا عيدا دولدات إني أقام وين اسملي ووح العقل وكلا قاته وتي نكي كوري فهد ياسين إنه كهال ضد معي ويرى أنك إنما كاس أرسنال وذا شقينا لين هاي أفكار لوجو قبطي وتي درجة اللوجا دقي وتي أسوق نمبر هيت كاللوجا دقي سنبلور ساعة حتى لحساع شاقي سنبلور سووا حوام مقري انتو شقينا يا حتى وو شيغ انت لا سو xiriirtay ya xiriirka ilaahayan wuu sheeg afar la taa telefoon in lagu dhaaran jiro telefoon lagu booteen jiro sheeg asaga xataa baawurkiisa in lagu qarxin karo maalin kasta in lagu booteenayo sheeg ka soo gudub waxa aamsanahay ninka la yiraahdo Fahad Yaasin si xog leh inuu nimanka wadaadada ugu xiriyo asaguna uu wadaad yahay Soomaaliyana inay degto kama shaqeynayo waana nin la og yahay oo lagu og yahay farmaajo adii Fahad Yaasin way cadayna isku dhacdeen waxaad aaday imaaraadka Fahad Yaasin waa ka wareegisay ila muuqato oo qadar waad ka soo wareegtay waxa weeye ka bedela Fahad Yaasin inta yartaa idin hartay oo sii dhameystiran Muqdisho ka bedela hadii kale qarxi ku dhacay Beirut oo kale ayaa markaan la soo wadaa waan ka sii hor dhacaya waan sheegaya sababtoo waxa loo soo wadan ku sheegay Fahad Yaasin oo laga wareejiyay qadar oo imaaraadka loo wareegay qadarna waxay sameynaysaa waxaan la arag oo la maqal ay sameynaysaa Fahad Yaasin inay adeegsanaysaa wixii ku dhacay Beirut oo kala ku dhici doona dadka soo Muqdisho jooga tii oo
number 4 ka dhacday miyay ahayd mase waxay ahayd isgoyska soobe ka dhacday oo ugu badneed wixii ku dhintay intaa joogto bal inta dadku ugu dhimata arag inaad macaan xasan sheekh kuma dhiman qolo kale kuma dhiman farmaajo hal mara waxaa dhimatay 1200 oo qofood dhin xataa arag ammaankii muqdisho oo nimanka ogeedo Arsenal meeshay joogeen markuu xasan sheekh ku dhiibay xamar cashuur ka wada qaadaan hoteelada yiraahdaan waxa iska dhib kii diidana qarax in lagu xiro waa la wada ogyahay haween ceebtaasoo dhan ah muqdisho taala dukaamada yararka kioska shaqaysta dadka in cashuur laga wada qaado waa la ogyahay oo ay qarxinayaan oo ugu booteynayaan 24 saac adinkuna cashuur ka qaadateen oo laba cashuur laga qaado waa la ogyahay wasiir bayro kala ku jooga oo dhahay ii sheegeen maleeyidanadu waa kororta maxay korortaa dukaan laba cashuur laga qaadayo cashuurta ka soo qaada ilaahay baa nale subxaanahu wa ta'aala jidkii lagu shaqaysan lahaa 4 saac waa xiran yihiin farmaajo intaas uga gudbiya farmaajana filimkaaga yaa cunay banooniga aad dheelisina waa banooni old waaye xataa Maradona iyo rag hore dheeli jiray way ka soo duqoobeen waa ka duqooda waxa soo dhan ka soo gudub ra'iisul wasaaraha cusubow ha isku ceebeen wanaag iyo sharaf iyo mudnaan waxaad nooga helaysaa inta adiga ah hadda leedahay oo bilood oo adiga aad u mahatay oo qaadatay aad nagu leedahay ha noola imaan dheeree waqtiga hala dheereeyo farmaajaha loo dheereeyo ha noola imaan neefaan ifa ka yeelmeen neef adii farmaajo isku maalin la dhacaysiin waxaad dhacaysiin adinkoo waqti lidin kordhina dhacaysiin waadna ku tala gasho waadna ku qaadata intaasoo biloodna aad ku qaadata mana lagu ku darayo mucaaradka waxaan idiin sheegayaa arrintaas hadday idiin timaado waa arrin qorshaysan oo kusoo socota beelaha hawiye oo la rabo in waqtiga lagu dheereeyo farmaajo waqtiga ku dheeraysto hadday idiin timaado ilmaada riyaal ha yeelinina ha gun ha noqonina farmaajo inuu kursiga Soomaaliya oo sii joogo oo dadka ku sii dheelo ha ka yeelinina dadku waa gumoomayaan intaan ka badan waxay ku gumoomayaan 4 sano ganacsi kuma shaqeyn muqdisho 4 sano dhagaxa hor yaala dadka 4 sano dhagaxa loo badinayaan ku yiri muqdisho in sii gumay ma dadka la rabaa inaad sanad kale loogu sii daro way shaqaysan waayeen ciyaalkii bajaajyada ka shaqaysan waayay kuwa tahriiba Yurub nagu wada yimaadaan waxay ku leeyihiin waxaan ka wada weynaa bajaajyadii ii sheeg ciidamada Soomaaliya jooga jid kasta wuu naga go'an yahay qofka jidka marsiinada xataa xabada lagu soo ridaa waa ku dhimanaysa waa ku dhaawacmaysa halkaan ay wada socdaan intaan soo baakimaan ka soo tago kuleeyay mid walbaba Yurub ay nagu yimaadaan maalin kasta uga turjunaa oo aan meelaha laamaha socdaalka inta geeyna aan laanta socdaalka inta geeyna uga turjunaa oo dhahnaa ninkan halkaan ku yimid Soomaaliya ku yimid wuu shaqaysan waay asaguna saasoo ku hadlaya xaqiiqda markii laga hadlo inta ugu badan waxay dhaan muqdisho ka nimid mootooyinka waa soo baakin bajaajan ku shaqaysan jiray oo ciyaalkayga biil ku raadsan jiray hooyada biil ku raadsan jiray eber meela marsiyan waay ceeb ka daran ma jirto goormay kugu dhacda markaa tiraadaan xilliga xasan sheekh way dhaantu ku leeyahay xilliga farmaajo ugu dhacda ceeb ka daran ma jirto ma jirto ceeb ka daran ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaan ka cabsano dadka ku nool muqdisho waa baaba'een way dhinteen mana noola in lagu celiyana ma rabo aniga silacaas ma rabo mana doonayo gudnimadaas mar labaad haddii la idinla yimaado aqoon-yahanada hawiyow mucaaradka hawiyow farmaajo hal sano oo kororsiya iyo ra'iisul wasaaraha lagu soo lamaaniyay oo farmaajo lagu xidxodayo halka sano lagu dari rabo ilmaada riyaal haddaa qaadatiin gunaatiin hayirnina hadda kulli magac kama bixi karo cid qaadanaysa ma aqaano oo haddaan iraad hawiyaan ka baxaya cid qaadanaysa ma aqaano oo nin weyn aan noqdo ninka weyn adabti looma qaato laakiin wallahi guna noqoteen ha qaadanina ilmaada riyaal macaano ha qaadanina in ninkaas loo shukaamiyo hal sano lagu daray ha qaadanina ragga oo habar gidir oo maaragtay ku qarweeye inay hal sano 3 bilood ninkii u mahday hal sano farmaajo in loo sii dheereeyo waqtiga hal nin waa ka filaya aniga ali jeeb ku jira sababtoo wuxuu maalin kasta soo qoraan aqaana siid aabahay farmaajo xataa inuu yiraahdo aabihiis iloobaan aan ka baqaya aabihiis isaga dhalay inuu iloobo aabahay farmaajo inuu yiraahdo aan ka baqaya ninkan cali war dheere sababtoo qoraaladiisa maalin kasta akhriya
xasan shiikh oo in adeerkiisa uu soo qaadayaa maalin kasta oo la shiraayo ninkan liya ninkii amxaarka ah magaciisu waa iloobay oo muqdisho ka talin jiray muxuu ahaa oo xamar dadka leyn jiray oo soo qaadaya xasan shiikh iyo isagoo wada hadlaya farmaajona wuu soo agdhigayaa laba nin is barbar dhiga miyaa xasan shiikh iyo farmaajo laba nin isku qayma miyaa farmaajo iyo xasan shiikh qaymo badan isku shaqo maahan xasan shiikh waa nin professor wuxuu soo qabtana waa la ogaa laba nin oo isku dhiganta xataa maahan laba nin oo isku dhiganta maahan ninkaan la yiraahdo sheekh shariif wax ka sheegaya sheekh 10 sano aan ogaada abba farmaajo inuu yiraahdaan ka baqa 10 sano ka hor aan ogaada abba farmaajo inuu wadanka uu u yahay ii sheeg ilaahay mid uu soo diray waxyaalahaas kale soo qoraa cali jeeb ku jiri cali oo kale waa ka yeelaya inuu taas caaw ku qarwiyo uu yeeli lahaa meelo umar hadduu yaqaan uu samayn lahaa laakiin u malayn maayo rag kale oo waxgaradka iyo xildhibaanada sharafta hoos maaragtay ii sheeg oo hawiye inay taas ka suurtoobayso beelaha yararka soo haray oo durbaanka tumanayay oo dhahay aabe farmaajo inuu ummadda Soomaaliyeed nabadoonkiisa yaa waan ogaanay haddaan baranay iska tunta adinku waxaa ogahay wax macno weyn iguma fadhidin dhul aaleedihiin durbaanka ku tuman maysiin dhul ragleeya durbaanka ku tumanaysiin xamar marihidiin iska jooga inta meelaha iska fadhin iska jooga waa kala tagaysiin ballan weey inaa kala tagtiin taa naftu naga dhicinaan ku yiri iska jooga qadiijo iyo adigoo dhuumanaya iyo meelaha galay laakiin gabadha ta ku taaban mayna adiga gabdhahana ma taaban laakiin ragga waa laga shaqaysan doonaa nafta hadaysan naga dhicin wana kala tagi doonaa iska tunta durbaanka dhul aaleedihiin ku tuban maysiin durbaanka dhul aaleedihiinna ku caytimi maysiin dhulka aad joogtiin waxaa lihi Soomaalida wax ku mahmaada ciirta dhama caydaada yaqaan caydanada waxaa ku barateen dhulka naga meesha aad joogtiin ku barateen iskaga caytama muqdisho bala dhul aleedahay iyo deegaan aleedahay oo ka soo jeeda markaan aragno ayaa aniga wax iga sheegi kartaa dadkaagu meelay deegaan marka ay tustaa wax iga sheegi kartaa aniga oo ay caay kartaa aniga laakiin dadkaagu meelay deegaan intaada lahayn meel ay ka soo jeedaan intaada lahayn meel ay ka muuqdaan intaada lahayn caydaad waxba igama dhibto haddaa hadashan waxba iima soo kordhinaysa aniga adaa hadla kaliya waxba iima soo kordhinayso hadda hadalkaygan caawo farmaajo u malayn maayo jirkiisa inuu jarjarayo laakiin xaqiiqday runta markaan taabto oo runta aan sheego farmaajo runta wuu dhageysanayaa waxbuuna ka fahmayaa waxaan sheegayo inay run yihiin inay been yihiin beelahaas yararka ah intaas aan ku leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub haddaa sharaf iyo wanaag naga rabtid saakana dardaaran fiican aan ku siiyey sharaf iyo wanaag haddaa naga rabtid ha raadin hal sano oo lagu dheereynayo farmaajo hana raadsan hal sano adigu wax ku dheereysanaysa sababtoo adigu waa ku ogolahay haduu waxa raadsan nin cusub aata oo inuu wax ku dheeraadaan waa jeclaan lahaa laakiin bartaad uga soo biirtaa sida ah meesha uga soo biirtay ayaa sida qaadataan u maleynaya saas nabaantu waa idin salaamaya waa idin jeclahay intaas ka badan inaan iraado mar rabo waxaan rabaa wax yar inaan ku soo noqdo ninkaan la yiraahdo ninkii maanta yiri xamar la igama xigo xamar waa laga xigaa dadaana degan iskale goofkiisa yahay madaxtooyada Soomaaliya caaw waxaan aaminsana inta la raro garaaw hadii la geeyo garaaw markii la geeyo wallaahi waxaan aaminsana ma jeertan ay dhihi lahayn inaan ma jeertaan wax ka noqon maayo madaxweyne ra'iisul wasaare gudoomiye baarlamaan ku xigeenka wax dhan ay ku isku noqon lahayn taasaan aaminsana aniga caaw inaan saasay dhihi lahayn nimankan la yiraahdo adeerkay waxba ma xiriyeen laakiin anigu waxaan ku tusa muqdisho madaxweyne kama yahay ra'iisul wasaare dhoodhoow shalmaan daraad la keenay aniga oo aan wali la ansixin iska daa kaas magaciisu waa ibre booliska kama yahay taliyihii ciidanka wax kasta kama yahay waadna ila nooshaa xildhibaanada adaa caytamaya waxa rabtaa sheegtaan qabyaalada adinkaana baray wallaahi wabillaahi inaan ka hadla qabyaalada inaan jeclayn adinkaana baray laakiin marka saas 4 saac noo rifanaysaan aad noo daaqaysaan adinkaana baray waana ka hadlaynaa waa ku qasbana inaan ka hadalno dadkanaga inaan difaacno waa ka hadalno oo aan dadkanaga aan difaacno aan ku qasbano waana difaacanayna qolana siyaasadda noogu jirto qolana dadka difaacda anigu dadka difaacaya ku jira awal siyaasadda waxa isla aan ku biirtid oo wax ka noqoto wadankaaga laakiin waxaan qareena oo hadli yaqaananahay وانا هلا انت هلا اقان
insha allahu tacaala dhammaantiinna waa idin jeclaa waan idin salaamayaa inta sheer garaysay sharafay agteeda ka joogtaa inta flow garaysay sharafay agteeda ka joogtaa inta leeg garaysana sharafay agteeda ka joogtaa inta diidan oo intaba aan maaragtay aan ogolayn soomaaliya waaye ummadda soomaaliyeed waa ha noolaada adinka ruuxiina noolaada farta inkuma fiiqina adinku ha isku fiiqinina farta anigu inkuma fiiqina ha isku fiiqinina waxaa weeye waxaan si guudaan u hadlay si dowladaana ka hadlaya dowladda markii laga hadlayana xero adigu meel neef ariyo oo adigu aad leedaho meel kuugu xaraysan ama baabuur ay meel ku baakimata maahan waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan meeqaamkeedii oo dhan oo qof kasta hadduu caqli leeyahay oo ka hadli karo oo asagu uu wax ka leeyahay waaye dhaxal naga wada dhexeeyo wey dhaxalkaasaana kala hadlayaa farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha cusub iyo raggii ka horreeyey aan kala hadlayaa dhaxalkaas naga dhexeeya anigu waddanka waxbaan ku leeyahay qurbaan ka joogaa waxaa igu dhacda nasiib darro waxaan ahaan lahaa maanta takhtar ama waxaan ahaan lahaa injineer haddii dowladda soomaaliya aan markaan ku dhashay aan kusoo hana qaaday waa iseegta wax waa barta laakiin intaas qurbaan ku baranaya intaas maraan luuqad barto maraan iskuul sare dhigto maraan xirfad sii dhigto maraan iska daala dhaco hadba meelaan ka giba dhacay mar la irido mar ku soo noqo mar labaad la irido ilaa waddankaaga ma joogto maraa iska ciishooto maraa iska xanaaqdo tiraahdo waddankaaga daa joogida maanta waa baasi lahayd cabdullaahi goodaxaaba la ii qaataba oo yiraahday gada keliya baastay gada keliya baastay xaniya la gaago cabdullaahi goodax si gada keliya u baastay gobolka banaadir aa wada dhacay alla ragsana cabdullaahi goodax ma lacag uu qaatay ma aqaan wuxuu sameeyey odagaas mase wuxuu islaa kursiga gadaal ugu soo laabatay adeer farmaajo gada keliya baastuu yiri xamar waxba kama baasin weligii ninkaa indha adag waa wiyaa cabdullaahi goodax ima soo marin oo siyaasad soo gala wallaahi bilaahi weligii cabdullaahi goodax oo kale maar wuxuu yiri waxaa baasay gada keliya lix iskuulaa gada u baastay iyo baydhabo xamarna waxba kama baasinuu yiri ilaahay amarkiisu badanaa dibaan sheekada ka raadshay research aan ku sameeyey researchka aan ku sameeyana waxaan ku soo helay ardada boqolka u horeysa in la kala gato oo lacag la kala siisto boqolka u horeysana mareexaana lacag shubtade cabdullaahi goodaxa laga gata cash aa la tiriyey boqolka u horeysaa la kala gata hawiyayaa wax u gadaya dee hawiya si madaxa looga garaacayo wadooyinkii xataa ay maaragtay ku shaqaysanayaan laga xireen lacagna maystarad si madaxa looga garaacayo lacagtii aan ka dhamaataba axmed nuur cali jimcaala ka haysta axmed nuur cali jimcaalana wuxuu hormariyey saan aaminsanahay dudbulo keliya wax u qabtay waana raga dadkiisu qoryaha ka dhigay hadduuse dudbulo qoryaha ka dhigi lahayn axmed nuur jimcaala xabad nagama soo hareene hal qof nagama soo hareen habar gidir ebra laga dhigaya hawiyo dhanbe ebra laga dhigi lahaa xabad kama soo hareen ilaaha qoryaha ilaaha noo soo diray axmed nuur jimcaala anigu waxaan aaminsanahay hadduuse dudbulo x control baawarku markuu dhaqaaqo waagii isbaarada u taallay mid markuu ku yiraa dhaqaaq midka kalena wuxuu dhihi jiray car dhaqaaq laba xerada ninkaasaa ilaahay noo soo dira maana qoryihii ka dhigee baabahay dad ka dhigi lahaayeen waxa weye marka waa soo gabagabaynayaa arrinta waa idin jeclahay aad baan idin jeclahay sheer gareeya flow gareeya bejkan ku xirnaada markhaatiga nool si fiican u flow gareeya oo raaca oo bejka kaloo axmacaar la yiraahdo flow gareeya like saara labada pageba waa la isla leeyahay kala kiciya niyuuska waa qareennada cusub oo u doodi doona wixii codkiinu meeshu gaarsiin doona wey adinkay dan inkugu jirtaa anay dan iigu jirtaa ummadda soomaaliya dan ugu jirtaa waddankeena dan ugu jirtaa sababtoo ah maanta waxaan ka hadlayo farmaajo way gaaraysaa sheertii laygtay ku gaarsiinaysaan dabcan inuuba dhegeystaa laga yaabaa caawa hadduuse dhegeysana mid siyaasi oo in adeerkiisa u gudbinaya okay marka maxaan ka hadla wacyigelin waano runta waxyaalo badan oo isku jiraan ka hadla waxaasoo dhan maaragta soo gudbin doonaa qof walboo dhiban oo asagu cabanaya wuxuu ka cabanayuun luuqa nooga soo diri karaan saan usoo dhigaynaa weliba publicaasaan usoo dhigaynaa oo intana fiirsanaysa ka badan ay fiirsanaysaa waan idin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu